kadib markii ay wada qaateen wadahadal ku dhawaad saac socday madaxweynaha dowladda Puntland iyo wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating ayaa marka uu soo dhamaaday kulankaasi ay ka warbixiyeen waxyaabihii ay ka wada hadleen madaxweynaha dowladda Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa ugu horeyn ka hadlay waxyaabihii ay isla soo qaadeen wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya iyo wax kale oo ka socda dadkayaasha iyo safaradaha wadamada saaxiibka nahay waxay u yimaadeen in ay u kurgalaan xaaladda geedi socodka doorashooyinka oo hadda aan waqtigan waxa ugu muhiimsan oo ugu muhiimsan Soomaaliya nahay waqtigan sida uu dhacayo barnaamijku in la mar walba la ilaaliyo waqtiga la qabsaday in doorashada ay dhacdo Cabdiweli ayaa sheegay sidoo kale in Michael Keating ay ka wada hadleen sidii doorashadu ay ku dhici lahayd waqtiga loogu talagalay isla markaasna loo ogaan lahaa dhaqaalaha doorashada ku baxaya loo si doorashadu u dhacdo waqtiga ugu dhacdo in mar walba la ilaaliyo waqtiga lagu barnaamij taasaan jeerin wixii ka dambeeya in laga dadaalo aan jeerin iyo in ay la socdaan barnaamijka soo dhacayo dhaqaalaha ku baxaya ayaan ka wada hadalnay loo baahan yahay si loo fududeeyo barnaamijka inuu dhaco iyo inuu noo keenay washingtonku sida beesha caalamka ay u eegayso Soomaaliya maanta isbedel ka dhaco 2016 isbeddelkaas aan rajeynayno inuu noqdo mid Soomaaliya ku horseeda horumar wadajir iyo midnimo iyo isbedel wanaagsan oo dalka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha ay ka wada hadleen qaabka doorashadu ay ku dhici lahayd loogana gudbi lahaa caqabadaha jira sidoo kalena wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa sheegay in kulankan ay wada yeesheen isaga iyo madaxweynaha dowladda Puntland ay isla soo qaadeen qoondada haweenka Puntland laga siinayo dowladda la soo dhisayo SRCC and a delegation to meet with him to get a briefing on where we stand on the electoral process. Also had a short discussion with the chair and colleagues from the C8, the State Indirect Elections Implementation Team, and listened to some of their concerns about the practicalities of organising the process. Later today, we'll be meeting some of the traditional elders as well as women's groups. And really the purpose of the trip is to, actually this is a very exciting moment for Puntland and for Somalia. Puntland has been leading the way for Somalia in so many fields, and I hope it will continue to do so in the field of the elections, this electoral process, and indeed as we move to 2020 right after the electoral process. We're also hoping that despite the many challenges of a clan-based electoral system, socdaalkani uu Garowe ku yimi Michael Keating iyo wafdigan uu hogaaminayay ayaa ku soo aadaya xilli ay dib u dhacday mar labaad soo xulista aqalka sare ee Soomaaliya waxaana uu Michael Keating shalay Baydhabo shir kula qaatay madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed iyagoona ka wada hadlay dib u dhaca doorashooyinka iyo marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya Ayuub Cabdirasaaq Maxamed Jubaland TV Garowe